madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa la filayaa in ay magaalada Hargeysa socdaal ku yimaadaan toddobaadka dambe sida ay xaqiijiyeen ila xogogaala socdaalkan labadan mas'uul ayaa la sheegay in uu ka dhashay kulankii toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Itoobiya ee dhexmaray madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne Farmaajo warar kale oo aan helayna ayaa iyaguna sheegaya in baarlamaanka Somaliland ay arintan fadhi isaga imaan doonaan toddobaadka dambe dhinaca kale golaha wasiirada Somaliland ayaa cod aqlabiyad leh ku aqbalay soo jeedintii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ee ahayd in uu Hargeysa ka daga madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay raali gelin qaran oo ku wajahan shacabka iyo madaxda Somaliland duqeyntii ay u geysteen xukuumadii kacaanka militariga ee uu horbooday General Maxamed Siyaad Barre iyo kooxo kale oo ka faa'iideysanayay dhibkii iyo dagaalkii ka dhacay waddanka Soomaaliya.